بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وافتيمنتي حافظة أي نقول تلقى الله runtii dad badan ay dhaqaalahooda ku bixiyeen iyagoo doonaya in ay ka qayb qaataan madowga inay iftiimiyaan meelaha marka aanay dadku mari karayn sida masaajidada oo kale marka la tagayo iyo meelaha iliiladaha iyo meelaha aadka u madow marka imika waxa soo dhamaatay qaybtii hore laga soo bilaabo goolada ilaa Siinay ayaa la soo dhameeyay waxaan imika bilownay qaybtii labaad oo xagga waxaan u leeyahay Haflandan dabeet xara awrtii hore ayaa loo leexan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo walaaliheenni ka qayb qaatay si guud iyo si gaar ahaaneedba waan u ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran Ilaahay khayr ha idinka siiyo qubuurta Allah idinku nuuro iftiina ifka kala tagtaan oo aakhira la tagtaan Allah idinka dhigo iftiin dhamaystiran oo marnaba idinka baqtiin Allah idinka dhigo runtii waxa ka qayb qaadateen barnaamij aad u qurux badan oo aad u wanaagsan oo dadkii baahnaa ama masaakiintii laambadaha la yaaciyay ee mid waliba doonayay in meel loo iftiimiyo ayaa runtii khashaafada waaweyn loogu iftiimiyay waxa ta kale xaafadii bay bilic weyn iyadana siisay oo aad iyo aad u qurux badan marka jazaakumullahu khayran waa bir Ramadan waa afartii Ramadan imika laba ishay socotay Ramadan kowdeedii labadeedii baan bilowna maanta saddexa ayaa markaas lagu guda jiray oo saddex maalmood baa amalku u socday marka aad iyo aad baa aan ugu ducaynaa walaalahaasi bishaasi Ramadan jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum inta ay ka badanna ha ka sii qayb qaataan bulshaweyntu iyo dadka deegaanku hana ilaashadaan baynu leenahay laambadaha iyo ilayskaasi loo iftiimiyay in xaafad waliba ama qayb waliba ay ilaashataa baa la doonayaa dhalinyartu inaanay jajabin baa la doonayaa in ay ka ilaashadaan wixii waayo waa dan guud oo aynu wada leenahay waa la inoogu tabarucay waa inaan inaguna ilaashanaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh